fadlan haddii aad ku cusub tahay channelka subscribe saar si ay kuu soo gaaraan wax walba oo aan soo dhigno cusub annagana ay noogu noqoto dhiirigelin. maalin maalmaha ka mid ah ayaa macallin waxa uu u yeeray ardaydiisii si uu uga qaado imtixaan tijaabo ah. waxa uuna diyaariyey warqado, waxa uuna u qaybiyey ardadii, waxa uuna ku yidhi mid kasta oo idin ka mid ah warqadaha magaciisa ha ku qoro. markii ay ku qoreen ayuu isugu geeyey hal qol. waxa uuna ka dalbaday in arday kastaahi uu la soo baxo warqadda magaciisa ay ku qoran tahay. waxa uuna siiyey muddo 5 daqiiqo ah inay dhammaantood ku soo helaan magacyadooda. nasiib darro, waqtigii ayaa idlaaday iyadoo mid iyaga ka mid ah uusan helin magaciisa. mar labaad macallinkii ayaa isugu yeeray, waxa uuna u sheegay in ay ku laabtaan qolka oo ay baadigoobaan warqadihii, mid kastaana warqadda uu helo uu siiyo ardayga magaca ku qoran. markii ay sidaas sameeyeen 1 daqiiqo gudahood, ardaydii mid kasta oo iyaga ka mid ah waxa uu helay magaciisii si dhaqsi leh. kadibna waxa ay ku soo laabteen macallinkii iyadoo mid kasta uu wato magaciisii. macallinkii waxa uu isugu yeeray ardadii, waxa uuna ku yidhi hadal xigmad leh: dantaada oo ku fushaa waxa ay ku xiran tahay danta walaalka oo aad fulisaa. dulucda sheekada waxaynu ka faa'iideynaa in walaalka baahidiisa oo aad xallidaa ay taadana ku xalismayso, ayna kaa caawinayso inay baahidaada ku fusho. mahadsanidin. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.